kulanti wanaagsan daawadayaal waa mar kale barnaamijkeena falanqaynta wararka warbixinaha dhinaca dunaasada caalamka oo dhan qodobada aad ku qaldootaan wararkeena waxa ugu weyn Maxamed bin Salman bin Abdul Aziz oo lolihii ugu darnaa ku hayo qoyskiisa isla markaana ku dhawaad 20 amiir jeelka u taxaabay asbaabaha ugu weyn oo la ogaaday isagoo isku diyaarinaya inuu bisha November bihii oo nool uu qabsado talada dalkaasi ka hor intaan shirka G20 uusan ka dhicin magaalada Riyadh hadaladii dhexmaray isaga iyo xubnaha uu xidhay iyo waliba isku dhaarsi xoogan oo halkaasi ka dhacay iyadoo la sheegayo in dalka uu khalkhalkii ugu badnaa ka taagan yahay boqortooyada Saudi Arabia dalka Afghanistan laba xafladood oo madaxweyne midba midka kala doonayo in uu talada ku qabsado ayaa ka dhacaya magaalada Kabul sidoo kalena waxaan idin hayaa sarkaalka magaciisa inta badan la qariyay al-shabaab ka tirsanaa oo la doonayay la sheegay inay duqeyn lagu dilay 22 bishii hore dhacday taasoo malaayiin dollar u madaxiisa dul saarnaa qodobada kale daawada ku maqli doontaan waxaa kamid ah wararka wacala dhinaca diblomaasiyadda wararkii ugu dambeeyay xanuunka coronavirus-ka oo markaasi u muuqda mid darsanaya iyo waliba warar kale iyo wacala taltaal iyo warbixin waaweyn waa maalinimo isniina waa 9 bishii saddexaad waa 20 waa markale barnaamijkeena falanqaynta wararka warbixinaha dhinaca diblomaasiyadda wararka wacala dhinaca diblomaasiyadda dawash qiimaha aad ka soo qayb qaadateen idinkuna dhinaca afkaarta aad iyo aad baad ugu mahadsantihiin dadweynaheena qaayaha badan ee ka soo qayb qaatay sidoo kalena daawadayaasha qiimaha leh barnaamijyada iyo balaanintooda xil weyn naga saaran waxaa sidoo kale idin soo socda waraysi aan la yeelanay wasiirka wasaaradda batroolka iyo macdanta ee Soomaaliya mudane injineer Cabdirashiid Maxamed Axmed oo dalka Mareykanka ku sugan heshiisyada ay dowladda iyo waliba shirkadaha kala saxeexdeen sidoo kale kheyraadka dalkeena ku jira noocyadiisa waxyaalaha dowladda uga qorshaysan qorshayaasha dhow iyo sida markaasi loo doonayo in sida ugu dhaqsaha badan loo soo saaro shidaalka iyadoo lagu jiro waqtiyadii ugu dambeeyay isticmaalka shidaalka ee dunida qodobadaas iyo kuwa kale ku maqli doontaan dabaasha qiimaha leh wararka wacala dhinaca diblomaasiyadda aan ku bilaabo isla markaana aan ugu horeysiiyo dalka Turkiga ayaa waxaa la magacaabay ama la aqoonsaday boqolka qof ee ugu sareeya dhinaca qaninimada ama dhaqaalaha dalkaasi majalada dhinaca falanqeysa arrimaha dadka dhaqaalaha haysta ee dunida ee loo yaqaano Forbes ayaa waxa ay sheegtay in ay boqolka qof ee ugu qanisan dalkaasi uu hogaaminayo ninka markaasi ganacsadaha ee leeyahay Murad Ulkar kaasoo markaasi sanadkii hore la sheegay in laga qaaday oo uu ka qabsaday jagadaasi hogaanka hore ninka leeyahay Erman Ilikak waa madaxa shirkadda dhismaha ee Turkish Construction Giant la yiraahdo Ronsan taasoo kamid ah shirkadaha waaweyn ee dhismayaasha ee dalkaasi Turkiga boqolkan ruux ayaa sidoo kale waxa ku jira gabdho badan oo dalkaasi ka tirsan kuwaas oo la sheegay in iyaguna kaalmaha hore ku jiraan qofka ugu qanisan dalka Turkiga ayaa waxa uu haystaa lacag gaaraysa 4.7 bilyan oo dollarka Mareykanka iyadoo ay u muuqato in haatan uu qaninimadaasi uu ku darsaday ama uu la wareegay ninka la yiraahdo ayaa la yiri Erman Ilikak oo markii hore haystay lacag gaaraysa 3.2 bilyan oo dollarka Mareykanka laakiin hadda ay u muuqato inuu lacag ku dhow 1 bilyan in ka badan oo dollar ay ugu darsantay lacagtiisa gabdhaha dalkaasi Turkiga ayaa la sheegay iyaguna inay kaalin weyn ay ka ciyaareen arinta iyadoo la sheegay in gabadh la yiraahdo Hamdi Ulkay iyo gabadha Suaad Gonsel iyaguna ay ku soo biireen xubnaha sarsare ee shirkadaha qaniyoobay ee dalkaasi Turkiga waxaa sidoo kale la sheegay in dadka lacagta haysta ee dalka Turkiga ay korsi kacayso marka la eego hayaanka dalku ugu jiro inuu dhaqaalihiisa uu kor kiciyo dowladda dalka Turkiga ayaa dhawaan hore doonaysay inay dunida ku soo biirto dalalka ugu milyaneerka badan laakiin waxay u muuqataa taas in geedi aad u dheer ka horeeyo iyadoo ay kamid yihiin dalalka Shiinaha Mareykanka iyo dalka Hindiya dalalka tan hogaaminaya dadka adduunka ugu qanisan halka dalal kale oo ay kamid yihiin dalalka Saudi Arabia Japan iyo dalal kale ayaguna ay markaasi doonayaan in ay ku biiraan kaalmaha sarsare ee dalalkaasi halkan dagala socotaan daawadayaasha qiimaha leh wararkii wacali dhinaca diblomaasiyadda caalamka oo dhan daawadayaasha qiimaha leh xanuunkii coronavirus-ka oo isagu dhextaal u ah dunida wararkeeda oo dhan ka mid ah wararka ugu cusub ee caalamka marba soo dhacaya warka kaliya daqiiqad u soo dhacaya dunida marka ka damaysana la soo ogaanayo dad hor leh oo u dhintay deegaano hor leh oo gaadhay iyo dalal hor leh oo ka cabanaya ayaa dalka Talyaaniga waxa uu wajahaya dhimashadii ugu badneed ee abid soo food saarta iyadoo 133 ruux ay ku geeriyoodeen saacadihii ugu dambeeyay sida ay sheegayso dowladda dalkaasi Italia ku dhawaad 400 oo qof ayaa hadda dhimashadu ay gaaraysaa dalkaasi gaar ahaan gobolka la yiraahdo Lombardy oo dadka ugu daran ay ku tabaalaysan yihiin 16 milyan oo qof oo xayndaabay ayaa u muuqda in ay ka soo darayso xaaladooda dhinaca dhimashada dalkaasi waxa uu sheegay in sidoo kale dadka ay soo ridanaya xanuunka ay yihiin kuwa wada jabsaday isla markaana gaaraya haatan baa la sheegay maalintiiba ku dhawaad 1247 qof dowladda dalkaasi Talyaaniga
ayaa karaankeeda dhan isugu geenaysa inay dagaal ku qaado xakamaynta xanuunka, laakiin waxay u muuqataa in xanuunku uu ka turturdhuron yahay gaar ahaan gobolada waqooyi ee dalkaasi, waxaana loogu baaqayaa dadka goboladaasi ku dhaqan inay xakameeyaan oo xanuunka ay xakameeyaan. Dowladda dalka Shiinaha oo iyada lagu ammaanay qaabka ay xanuunka ula tacaashay ayaa tallaabooyinkii ugu badnaa ay qaadisay waxaa kamid ahaa inay dadka guryaha ku ceshiimaysay, qaarna hoteello u kireysay, kolkaana ay u amaamuday dad cuntooyinka siiya u daadiya, taasoo la sheegay inay yaraysay in xanuunka uu si daran ugu faafo goobaha qaarkood. Dalka Sacuudi Arabia ayaa isaguna gobolka bariga dalkaasi ku yaala ee la yiraahdo Qatiif waxa ay albaabada isugu dhufteen dhammaan, waxaana ka dhigeen gobolka mid la xayndaabay kadib markii la sheegay in gobolka uu noqday hoyga dadka meesha ugu badan ee qulqulka dadka ay ka imaan karayaan xanuunka qaba. Sidoo kale dowladda dalka Sacuudi Arabia waxa ay gebi ahaanba albaabada isugu dhufatay iskuulada ay ka mid yihiin jaamacadaha iyo waliba goobaha waxbarashada, goobaha kale la isugu yimaado, iyadoo magaalada Riyadh la sheegay in gebi ahaanba iskuuladii ku yaalay albaabada la isugu dhuftay. Iran waxa ay sheegtay in 49 qof oo cusub xanuunka uu soo daadiyay, iyadoo ku tilmaantayna in arintu ay tahay in ay dhimashaduna ay ku dhowdahay ayaa la yidhi haatan iyaguna kontameeyo ruux oo 24 saac ugu dambeeyay dhintay. Haatan dalka Iran ku dhawaad 200 oo ruux ayaa uu xanuunka nafta ka jaray. Wararka ka imaanaya dalka Qatar ayaa iyaduna waxay sheegaysaa in xanuunka ay u muuqato in dadka uu soo ridanayo. Dowladda dalka Qatar waxay sheegtay in 15 ruux haatan uu hayaan tirada ay hayaan ay tahay dadka xanuunka soo ritay, waxayna mamnuuceen dhowr dal oo kamid ah dunida kuwaas oo ay iska xakameeyeen. 14 dal ayay sheegeen inaysan dalkaasi tagi karaynin, diyaaradeeduna aysan cid u qaadi karaynin, oo ugu horeeyaan dalalka Shiinaha, Masar, Hindiya, dalka Iran, Iraq, Lebanon, Bangladesh, Nepal, Pakistan, Philippines, South Korea, Sri Lanka, Syria iyo Thailand. Waxay sheegeen dhammaantood in dalalkaas oo dhan loo arko kuwo markaasi xaaladooda darsan tahay. Dalka Talyaaniga ayaa horay dowladda dalkaasi u amartay diyaaradeeda leedahay Qatar Airways inaysan wax duulimaad ku tagin. Haatan dowladda dalka Qatar waxay sheegaysaa inay doonayso in xanuunka xakamayso inta goor tahay. Mareykankana gobollo badan ayaa xaalad degdeg lagaga dhawaaqay sida gobolka Oregon ee dalka Mareykanka oo la sheegay in haatan la sheegay in 60 maalmood oo xaalad degdeg la geliyay, sida uu sheegay gudoomiyaha gobolkaasi oo sheegay in wax kasta oo karaankooda ay qaban doonaan. Kate Brown waxa uu sheegay in ay arintaasi ay ula leeyihiin sidii loo xakameyn lahaa xanuunka oo u muuqda mid darsanaya, Mareykankana saameyn aad u xoogan ku yeelanaya, taasoo ah ayay tiri andhaho gabadhaasi in ay tahay arrimihii ugu darnaa ee gobolkooda Oregon soo food saara. Dowladda dalka Mareykanka madaxweynaheeda iyo ku-xigeenkeeda ayaa iyagana la doonaya in la indheeyo kadib markii la sheegay in goob ay tageen xanuunka qof jooga uu qabo, waxaana tani ay ka dambeysay iyadoo madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenku ay sutida u hayeen in xanuunka ay hoos u dhigaan ama ay qiimihiisa in dalka Mareykanka uu ku faafo ay ka dhigaan mid wax ka soo qaad lahayn. Gobolada koonfurta ee la yiraahdo gobolka South Carolina ayaa isagana la sheegay in xanuunka haatan dad kale laga helay, sida ay sheegayso dowladda gobolkaasi heer maamul goboleed. Gobolka California meelo badan oo ka tirsan ayaa iyagana xaalad degdeg lagaga dhawaaqay. Deegaanka la yiraahdo Oakland ee gobolkaasina waxaa loo doortay magaalada dekedda leh in ay noqoto goobta lagu soo dhaweynayo maraakiib dalxiis oo iyagana dad loo maleynayo xanuunka inay qabaan ay xambaarsan yihiin. Gobolka Nevada ayaa isagana xanuunka laga soo sheegaya dalka Mareykanka, waxaana dowladda Mareykanka haatan ay ku dhawaaqday in ugu yaraan 30 gobol oo kamid ah 50 state ee Mareykanka uu xanuunka aafeeyay ama xanuunka u gaaray. Hay'adda The Centers for Disease Control and Prevention ee xanuun dhinaca caafimaadka dalka Mareykanka maamusha waxay sheegtay in xanuunku u muuqdo mid Mareykanka ku baahaya haddii aan si wada jira dowladdu aysan ula dagaalamin ama aysan dirir xoogan ugu qaadin. Iyadoo gobolka Washington ugu darnaato magaalada caasimadda ee la yiraahdo Seattle ay markaasi xanuunka dadka ay soo ridanayaan oo sii badanayo, 160 qof ayaa la aaminsan yahay inay halkaasi ku soo daadanayaan, halka la sheegay in dhimashada dalka Mareykanka oo dhan haatan ay gaarayso 21 ruux. Gobolka Kentucky dalka Mareykanka ayaa isagana la sheegay in 3 qof xanuunka laga helay maalmihii saacadii ugu dambeeyay, iyadoo haatan la sheegay in 4 ruux ay marayso xaaladdu. Wararka waxay sheegayaan in xaaladda gobolka la yiraahdo isagana ama gobolka dhinaca ku yaala koonfurta ee dalkaasi Mareykanka la adrasayo ee la yiraahdo Florida, iyadoo la aaminsan yahay in xaaladda indhayntu ay tahay mid muhiim ah. Gobolka dhinaca bari ku yaala ee Maryland ayaa isagana la sheegay in 2 ruux xanuunka laga soo helay, waxayna dowladda dalka Mareykanka dadka ugu baaqaysaa inay taxadar weyn sameeyaan iyadoo ay u muuqato in xanuunku uu si weyn u faafayo. Pennsylvania 2 ruux ayaa la sheegaya in xanuunka laga helay. Wararkii ugu dambeeyay waxay sheegayaan xanuunku inuu u muuqdo mid darsanaya. Dalalka ugu daran ee hadeerta xanuunku ku sii badanayo waxaa kamid ah dalalka Singapore iyo dalka Spain oo la sheegay in dalalka haatan ay ku soo biireen safka hore ku jira, iyagoo safka soo galaya
dalalka Shiinaha, Iran iyo dalka la yiraahdo Italia. Dalka Faransiiska ayaa isaguna sheegay in 3 qof oo kale ay dhinteen. Poland ayaa iyaduna sheegtay in dad badan oo xanuunku soo ritay iyadoo wali baaritaan ku haysta tirada rasmiga ah ee dadka. Gobolka Massachusetts ayaa 15 kiis isagana laga cadeeyay, waxaana adduunka oo dhan u muuqataa in xanuunku uu yahay mid si weyn u faafaya oo ay adag tahay sida loo xakameeyo ayadoo la sheegay in dawladuhu ku kala wanaagsan yihiin. Hase yeeshee dalka kaliya lagu amaanay inay xanuunka hogaaminayaan la dagaalankiisa ayaa wuxuu yahay dalka mid ah dalalka caalamka islaamka. Dalkaas ayaa noqday dalka Turkiga ayadoo oo la sheegay in dalka Turkigu uu noqday dalka kaliya ee xanuunka la tacaalay. Hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan caafimaadka ayaa waxa ay Turkiga ku amaantay tallaabooyin cayiman oo ay qaaday kuwaas wax ku ool u noqday, waxaana ay dawladdu ay samaysay inay horta goobo dhinaca warwareynta iyo goobo ka hortaga oo garoonada, dekedaha, xuduudaha iyo meel kasta la soo gudbi karo ay dhigtay, taasoo sahashay ayaa la yiri in xanuunka ay la dagaalanto. Sida la sheegay 20 dal oo xanuunka si weyn oo la dagaalamay ayaa Turkigu u hogaaminaya, ayadoo la sheegay in 193 dal ee golaha guud ee qaramada midoobay ku jira ama ku midaysan ay ugu horeyso dawladda dalka Turkiga sidii xanuunka ula tacaashay. Waxayna sheegtay in tallaabooyinkii ay ku xidhay xuduudaha dalalka Iraq iyo dalka Iran ay wax weyn tartay, ayadoo sidoo kale xakameyn xooggan ay samaysay. Dalalka iyaguna safka hore kaga jira xakamaynta xanuunka ayaa waxaa ka mid ah dalka Russia oo isagana la aaminsan yahay in uu xakameeyay dadka ka soo galay dhinaca Shiinaha, isagoo dadka qaarkoodna iska caydiyay ama dalkaba ka saaray sida ay sheegayaan wararka dhinaca diblomaasiyadda ee ugu dambeeya arrimahaas. Halkaad nagala socotaan waa wararkii wacala dhinaca diblomaasiyadda. Waxaan rajeynayaa daawasha qiimaha leh in taxadar weyn la sameeyo xilligan oo kale waa xilliga aad loogu baahan yahay talooyinka iyo wacyigelinta dhinaca caafimaadka, inagoo markaas ay inaga tahay inay dadkeena Soomaaliyeed uga digno xanuunka, gaar ahaan dadka waaweyn maaragtay ay jooga meelaha dadka ama suurtagal tahay inay safraan, inay aad isku ilaaliyaan jeebka, inay gashadaan waxyaalaha sanitizerska la yiraahdo, waxyaalahan markaas germska dilaa ee gacanta la marsado haddii ay suurtagal ku tahay. haddaad wadankii hooyo joogto Soomaaliya dad joogto xitaa inaad taxadirto ayaad aad iyo aad ugu baahan tahay, gacmahagana mar walba dhaqdo, in maxay tahay aad yareyso qof kasta inaad salaanto. sidoo kale waliba dadka waaweyn aad iyo aad iyadoo qof walba looga baahan yahay taxadirka, laakiin dadka waaweyn waalidka iyo in la ilaaliyo weeye. sidoo kalena in safarada la yareeyo oo aad loo yareeyo. waxaad ogaataa bahasha afka lagu xidho, afka lagu dubto inaysan ahayn wax tar si la aaminsan yahay ama yani marka scientific loo fiiriyay dhinaca cilmiga wax tar ma aha, waxa ka wax tar badan dhaqitaanka gacmaha iyo inaad gacmaha masaxdo oo aad ku masaxdo bahashaas yar ee germska disha ama waxa loo yaqaano markaasi germs dilaha marka ama la dagaalanka germska cirib tiraha germska bahasha yaraan oran karno taasa ka muhiimsan iyo dhaqitaanka gacmaha si joogto ah iyo inaad gacmaha iyo afka kala ilaaliso sida ugu suurtagalsan kuuguna markaasi kuguna dhow mar walba dabaasha qiimaha leh ayada oo dalka Mareykanku uu dhawaan ku tooqay inuu dilay sarkaal sare oo Mareykanku uu doondoonayay kana mid ahaa ayaa la qorsheeyaashii Banda Bay weerarkii lagu qaaday ee dalkaasi Kenya ayaa waxa ay markii ugu horeysay warbaahinta caalamka qaarkood ay ogaatay magaca sarkaalka la dilay inuu ahaa sarkaal madaxiisa ay dul saarneed $5 milyan oo Mareykanka kaasoo la sii rabay ayaa la yiri dadkii ama ruuxii keena xog ku saabsan ama cidii soo ogaatay halka uu ku sugan yahay. 2008 ayaa dawladda Mareykanku ay Bashiir Maxamed Qoorgaab ay dul dhigtay madaxiisa lacagta intaas leeg. haatan dawladda Mareykanka oo wali aan si rasmi ah u sheegin magaca qofka ay dishay, haddana waxaa la ogaaday in ruuxa ay ku tilmaantay inuu yahay sarkaal muhiim u ah ama lafdhabar u ah howlgallada al-shabaab ay ku kiciso dalka Kenya iyo dalka Soomaaliya iyo fadhiisimada ciidamada uu ahaa Bashiir Maxamed Qoorgaab oo ay ku tilmaantay in la doondoonayay. Qoorgaab ayaa waxa uu u muuqdaa in uu ahaa mid ka mid ah lafdhabarta xubnaha al-shabaab, gaar ahaan saraakiisha sarsare, iyadoo la sheegay inuu qaabilsana howlgallada ee al-shabaab kula wareegto goobaha ama ay ku qaado goobaha militariga ee fadhiyaan hadday yihiin kuwa Soomaalida AMISOM iyo kuwa gudaha Kenya ay ku jireen kuwa Kenyaatiga iyo kuwa kale ee dawladda Mareykanka. haatan madaxda dalka Mareykanka ayaa waxa ay sheegeen inaysan doonaynin tafaasiil dheeraad ah ka bixiyaan qorshaha, laakiin waxa la xaqiijiyay in ruuxa dhintay uu yahay Mr. Maxamed oo la aaminsan yahay inuu ka mid ahaa madaxda ugu turtudharoon ururka al-shabaab. dawladda dalka Mareykanka ayaa wacad iyo dhaaro isdaba jooga u diraysa al-shabaab, waxayna sheegaysaa in ugaarsigoodu uu noqonayo mid la sii ballaariyo balse uusan noqon doonin mid la yareeyo. dawladda Mareykanka waxa ka go'an ayay sheegtay in ay doonayso
inay cirib tarto al-shabaab gaar ahaan ay beegsato kolooyooyinka al-shabaab xiriirsan baabuurta looga shakisan yahay inay socdaan ee ay saaran yihiin xubnaha iyo sidoo kale in ay beegsanayso goobaha ay markaasi ku sugan yihiin deegaanka Sakow ayaa lagu dilay 22kii bishii hore ee February Mr. Qorgaab iyadoo ay la sheegay warar kale oo isla dhex marayay oo ahaa in Qorgaab uu kamid ahaa xubno khilaaf dhaliyay oo ururka al-shabaab ku kala baxay kadib markii baal leeydi ay waxba ka soo naasacada waayeen talooyin iyo qodobo la doonayay in la isla fahmo ama la isteego daawasha qiimaha leh intaan ku joojiyo qaybta dambe wararka waxaan dhinaca diblomaasiyadda